Soomaaliya xooga dalka adinkana guuleysta saraakiil xigeenada alifleyda iyo dableyda ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed waxaan sidoo kale u mahad celinayaa wasiirka gaashaandhigga iyo guud ahaan waftiga qiimaha badan ee halkan socdo hogaamada taliska guud iyo taliyihii guutada iyo guud ahaan saraakiisha kale awalan intaan hadalkayga gelin waxaan leeyahay dhammaan geesiyaashii qaranka Soomaaliyeed ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed saaxiibadiinii ku shahiiday intii ay ku jireen jihaadka iyo halganka ay kula jireen nimanka argagixisada Ilaahay u naxariisto in allaalay inta nooga dhaawacantana Allah subhanahu wa ta'ala caafimaad ha siiyo inta kadib aad iyo aadan ugu faraxsanaa runtii saakiinan hortiidna soo istaago meelo badan aan hore ugu soo kulannay meeshii koobaad nooma ahan meeshii ugu dambaysana nooma aha doonto ciidanka Ilaahay meelo kale ayaan ku kulmi doonaa iyo maalmo kale iyo waqtiyo kale oo aad u macaan badan waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo dhammaan waajibaadkii qaranka iyo shaqooyinka adkay ee aad soo qabateen meelihii kala duunaa marxaladii kala duunaa aad ku soo qabateen runtii ururkan halkan fadhiya mudana wasiir wuxuu nagu leeyahay xusiis gaar ah waxaan u malaynayaa inta badan ayadoo ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo yahay ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed mas'uuliyad midu ay saaran tahay waajibaad midana ay fulinayaan haddana colalka ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed waxa jiraya hawlaha ay qabteen iyo sida geesinimada lahay u qabteen mararka qaar koor unidya aan qalbigaaga ka go'in halka unidka fadhiya ee ururka saddexaad ee gorgor waa ururkii ay argagixisadu isku dayeen 3 Abriil 2021 inay ku weeraraan gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan Awdheegle waxaan wali qalbigeena ka go'ayn casharkii aad meeshaas ugu dhigteen qof walba idin kamid ahuna waa xusiista Allahu Akbar inta aan ogahay haddaan iga dib looga soo diray hal qof oo dibla kuma jiriyo ururkan Sooma ya yes qaranka Soomaaliyeed marka taas waxay idin tusaysaa xubin kasta ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed kamida daruufo kasta ha jiraano marxalado kasta ha jiraano laakiin qarankaagu mar kasta iyo meel kasta kuma moogo mid ka dhintayna madaxda qaranka iyo mas'uuliyiinta kala duwan qalbiyadoona iyo qalbiyadeenna ayuu baaqi ku ahaa doonyaa mid ka noolna idanka Ilaahay mar walba wuxuu noqon doonyaa mid kuwa ku qoran qalbiyadeenna mar walbana aan xusiisanno ummadda Soomaaliyeedna guud ahaan iyo shacbiga Soomaaliyeedna qalbiyadooda ay ku qoran tihiin waxaad haysaan abaal idin kaga hayaan annagana waxay noo tahay runtii sharaf muwaadinka ama qofka muwaadinka Soomaaliga ama bini'aadmiga ah waxa uu bixiyo ee uu hibeeyo dalkiisa ee uu hibeeyo dadkiisa waxa ugu qaalisan waa naftiisa iyo dhigiisa wax ka dambeeya miyaa jira runtii dhammaanteenba waxaan ku faraxsanahay xubin kastoo naga mid ah inay go'aansatay garwaaqsatay lagama maarmaana ay tahay inuu qarankiisa u hibeeyo naftiisa inuu bulshadiisa u hibeeyo dhigiisa u daadiyo si ay u helaan nabad si ay u helaan xaslooni iyo kala dambayn si ay u helaan amni ay ku jiiftaan guryahooda si ay ugu noolaadaan sharaf iyo cisi iyo karaamo oo ay meel walba ku joogaan si ay u nabad galaan naftooda iyo maalkooda waxaad ogtiin cadawga argagixisada ah ummadda Soomaaliyeed dhibaatooyinka uu ku haayo ayadoo aanay jirin cid oo kala soocayo hooyo aabe waayeel caruur cid walba waxaan rabaa inaan idinku bogaadiyo dhammaan hawlaha aad ku jirtaan waxaan u baahannahay inaan sii xoojino waxaan u baahannahay inaan xusiisnaano waxa aan ku jirno inay cibaado yihiin waxaan rabnaa tii Allah subhanahu wa ta'ala nagu waajibiyana inaan ku darno laakiin daqiiqad kasta iyo talaab kasta ee aad qaadaan waxa idin kaga socda ajir iyo xasanad waayo ma jiro interest gaar ah aan leena ma jirto ujeedo gaar ah iyo dan gaar ah aan u socono waxaan u socono waa badbaadinta qarankeena waxaan u socono waa badbaadinta bulshadeena waxaan u socono waa ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadiniinteena Soomaaliyeed waxaan u socono waa in hooyooyinkeen iyo walaalaheen iyo aabbayaasheen saaxiibada ay nabad ku jiiftaan waa inay xurriyad ku joogaan taas ayaan u soconaa habeen iyo maalin taas ayaan uga soo fogaanay qoysaskeennii carruurteennii iyo guryaheennii
taas ayaan u soo galnay hawdka oo aan u dooranay oonka iyo gaajada iyo haraadka dad suwaay aad u lugaynayseen masaafo ka badan 200 oo kiiloomitir inta dhimanna idanka ilaahay markaan gaar helnana waa raacaynaa haddaan weynana waa lugaynaynaa si aan u xaqeejino amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed si aan u xaqeejino xasiloonida iyo kala dambeynta dalkeena iyo dadkeena si aan u xaqeejino annaga naftirkeenu in aan gaarsiino wadankeena inaan ku noolaano si xurriyada oo halkaan qofka laga fasaxo baritam haddaan halkaan joogno si tartiiba baska halkaan socdo oo iyo raaco gurigiisa ku tagiyo haddana baska kale ka soo raaco oo xiradiisa ciidanka ku yimaad taas inaan suurta gelina ayaa naga la rabaa haddaan kaana taas suurta gelin nolosha aan ku noolnahay wax macnaa nooma samaynayso macna ma noo samaynaysa no waana ogtihiin fulanimadooda waa ogtihiin wax kasta isku dayeen waxay idinku dhufteen baawur qaraxya waxay idinku dhufteen dad qaraxya waxay idinku dhufteen wax kasta maxay ku bedeleen ya kuwaad haysataan adinkoo haysatina uga adkaateen Soomaha ya meel kasta ee ay joogaan marka noocaas waa kaliya waxa naga dhimano waa inaan uga daba tagno meel kasta oo ay joogaan aad iyo aad ayaan runtii mar labaad iyo mar saddexaad ku faraxsanahay inaan wajiyadiina arko idanka ilaahay abaalmarinadiinu way isdaba joogi doonaan tii hore